kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeena idiin soo gaadhay ciid wanaagsan daawadayaal qodobada aad wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a khasaare ba'an oo ka jiro ciidii ka socotay munaasabadii ciidda ee magaalada Addis Ababa ayaa waxaa lala beegtay bangacmeed iyadoo dhinaca kalena la sheegayo khasaarihii halkaasi ka dhacay inuu yahay mid aad u tiro badan. Waxaa sidoo kaleeto ka socotay dalka Ethiopia khataro amni oo ku salaysan isir nacaybka iyo sidoo kaleeto islaam nacaybka oo ka socday isbuucyadii ugu dambeysay ayay arrintani daba joogta. Waxaa sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan ayadana magaalada Muqdisho oo laga soo sheegayo khatar amni munaasabadii ciidana qaababkii lagu ciiday iyo sidoo kaleeto xaaladaha meesha ay marayaan ayaan ayadana halkan inagula wadaagi doonaa. Sidoo kaleeto deegaanka Soomaalida ayaan asagana ku soo qaadan doonaa inta aan barnaamijkeena ku guda jirno. Daawadayaal hadday tahay markaad kugu horeysay barteena YouTube-ka aad soo boqoto channelka subscribe saar oo sii gaarsii asxaabtaada kaleeto haddii hore noola joogtayna daawashadaada halkaa ka sii wad. Barnaamijka waxaa igu heliyo saaxiibkay Santaag oo aanu ka wareysanayno khasaarihii ugu dambeeyay ee qaraxii lala beegtay dadkii muslimiinta ku ciiday magaalada Addis Ababa iyo sidoo kaleeto sida looga ciiday dhammaanba deegaanka Soomaalida iyo Soomaalida dhulka ay degtaba. Santaag waxaa la soo sheegayaa khasaare aad u ba'an oo ka jiro bangacmeedkii lala eegtay dadkii ku ciidayay munaasabadii ciidda ee magaalada Addis Ababa. Maxaa u dambeeyay bal wararkaasi adoo noo soo kormeeray. aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaana ummadda Soomaaliyeedna dhammaantood waan salaamaynaa waxaana leenahay ciid wanaagsan bil barakaysan oo sharaf badan oo qof waliba uu u dadaalahayay in uu helo ajir iyo xasanaad oo miisaankiisa aakhiro uu kordhisto ayaa inaga dhamaatay. waxaan leenahay bisheeda kale nabad Allah inagu gaarsiiyo muslimiinta dhammaantood meel walba joogaan. haddii aan u guda galo barnaamijka aad weydiisay su'aalahan magaalada Addis Ababa maalmihii ugu dambeysayba ayada caasimada iyo agagaarkeeda waxaa ka jiray khatar amni taasi oo sabab u ahayd kooxo xag jiriin ah oo islaam nacayb ka buuxo oo muslimiinta dhibaato ba'an ku hayeen gaar ahaan magaalada Gondar oo caasimada Addis Ababa aan waxbaba ka dheerayn oo isku deegaanna ah oo deegaankooda uu isku xidhan yahay ayaa waxaa ka jiray khasaaro aad u ba'an masaajid la gubay hanti la boobay dad muslimiin oo la laayay cabsi khatar amni ah ayaa jirtay oo dhinaca muslimiinta iyadoo maanta magaalada Gondar aan laga ciidin oo muslimiinta culimada ugu waaweyn magaalada Gondar ay ugu baaqeen inaysan guryahooda ka soo bixin oo magaalada aan laga ciidin hase ahaatee maalmihii ugu dambeysay Addis Ababa naftirkeeda xushushuux ayaa laga dareemayay mudaharaadyo looga soo horjeedo falalkaasina way ka socotay khatar laga cabsi qabo oo inay ka dhacdo oo qoladan muslim nacaybka ay ku jirtana inay joogaan meeshaasina waa laga cabsi qabay hase ahaatee muslimiintu way isku soo baxeen banaa garoomada waaweyn ayaa la iskugu imaaday cid waliba iyadoo shacaa'irta muslimiinta la muujinayo salaada ayaa loo soo diyaar garoobay takbiirta ayaa la qaadahayay hal mar ayaa waxaa laga warhelay sawaxan iyo bangamceed meel laga soo tuuray oo muslimiinta afaafka hore ee garoonka ku dhacay ayaa laga warhelay dhinaca mimbarka ee garoonka ayuu ku dhacday meesha waxaa lagu arkay dadkii oo kala yaacay oo salaadii meesha lagu kala yaacay oo nin waliba ninka kale iyo sidoo ugu xoog badnaa nin walba si uu carari karay naftiisa u maareysan karay uu loo cararay ciidamada ammaanka ayagana meesha ay ku sugnaayeen ayaga ayaa dabagalay kooxihii tuuray dabcan wali wax wara kama soo bixin dhinaca dawladda inay qabteen iyo inaan la qabanin wali wax wara kama soo bixin Santago maalmihii ugu dambeysayba sida hore u sheegtayba waxaa ka jirtay shaqaaqo amni oo u dhaxaysay dadka muslimiinta aan ahayn lagu beegsanayaan dhehe arrintani ma taasay daba joogtaa mise tii kaleeto oo dawladda federaalka ay lama ammaanka ay sheegayeen in dad argagixisa laga qabtay magaalada Addis Ababa ma arrintaasi ayaad u malaynaysaa sidee wax u jira ama sidee lamaha ammaanka ay ku fasirteen qaraxan lala eegtay dadka munaasabada ciidda ku sugnaa lama dhihi karo argagixisa lama dhihi karo dadkan dad muslimiin ayay ahaayeen dad ciid ayay ahaayeen ciid ayaa lagu jiray mas'uuliin hadda sarsare oo dawladda ka tirsan oo hadda dawladda federaalka ka tirsan meesha ma fadhinin oo hadda la dhihi karo waa la beegsanayay shacab ayaa ciidahayay iyo dad markaa haybtooda aan la garanaynin oo haday dawladda xataa ku jiraan aan wajahan loo garanaynin meesha bamgamceedka laga soo tuuray waa meel derbi dhinaca kale ka ah oo maaragtay ay degan yihiin dad gaalaha ay degan yihiin marka wali waxay sii daba socotaa كل دولتنا إسلام عيب كي يتبصعتها كل دولتنا ورا يكسر ساري دونتها ويادو لين عيد دونتها هأسر تمرك أيضا أو أرجع حسها كتل مانتو أما عدة دونتها كتل مانته تاني وحاون تبصعتها اسم النعيب كسببته عدد المسلمين تا ملايين تا ماشى مانته إسكوي ماضي فرحسن بلجحوا يهي
kooxa ka xun oo mintidiina oo xag jiriin ah oo islaam nacayb iyo waxa weeye cuqdad ka buuxdo weeye oo muslimiinta doonaya inay baabiyaan ilaahay ayaa ka qabtay khasaaruhu ma badna walina laba xaqiijinin oo warbaahinta looma ogolaanin inay meesha soo galaan oo markaas ay arintani bulshadu soo jeediyaan Santiago saad u sheegtay magaalada Gondar lagama ciidin magaalooyin kale oo dhulka Axmaarada ku yaalana waxa looga ciidi waayay cabsi daraadeed iyadoo ay jiraan shaqaqooyinkii lagu beegsanayay muslimiinta iyo sidoo kale muslim naceebkii ka jiray deegaanka Axmaarada ayaa halkiisa ka sii socdo ra'iisul wasaaraha waxa uu booqday gobolka Axmaarada waxaana uu kala hadlayay ayaa la sheegay arrimahan ku saabsan islaam naceebka oo loo ogolayn dalka Ethiopia in gabi ahaanba uu ka jirto arintaasi miyaynan wax ka bedelin booqashadii ra'iisul wasaaruhu halkaas uu ku tagay mise wixiiba waa un isla halkii oo xaaladdu halkii anbay ka sii socotaa horta waxaa la yidhi lafa ameeso duudka ka xidhiidhsanayaa la yidhi ra'iisul wasaaruhu waa nin kristan ah wuxuuna si aada u xushmaynahayaa qowmiyadda Axmaarada oo tan iyo intii isbeddelku soo galay lagu xamanahayay in isagu uu gacan saar hoose la leeyahay oo danahooda iyaga Axmaarada uu ilaalinayo walow qowmiyad ahaan la sheego inuu ka soo jeedo oromaduna iska fogeyso ay tiraahdo Axmaar weeye annaga nagama soo jeeda ay dhahaan oo muran halkaasiba uu ka taagnaa hase ahaatee Abiy Ahmed qowmiyadda Axmaarada gacan saar hoose ayuu la leeyahay Axmaaraduna sidaad ogtahayba 100 sano ayaa maartay madaxa looga taagnaa oo yaxda lagu hayay sanadihii yaxda lagu hayay madaxa looga taagnaa hadda madaxa ayay furteen waxay doonaan bay sameynayaan wadanka Ethiopia maanta kala burburka waxa weeye burburka ka taagan sabab ayaga u ahaa haddana islaam nacaybka sabab ayaga u ahaa waan horeyna waan u sheegnay oo daawadayaasheena horey waan oola socodsiinay 2020 bishii saddexaad waa kii ay sameeyeen dhibaatada ba'an ay sameeyeen ay waxa weeye ay masaajidda gubeen oo waxa weeye muslimiin badan ay wax gaarsiiyeen marka dhibaatada ayaa wali socota Axmaaradu dhibkeedu ma yara markii koobaad ma aha markii labaad weeye muslimiin nacaybkana wali waa ku dhaahan yahay Ethiopia marka kaleeto waa Ethiopiyada kaleete ayay awl u taala sidii ay Axmaar ka yeeli lahayd Axmaar sidaan wada ognahayba waa qowmiyad yar waa qowmiyad waxa weeye dargiye ka hor wadanka maamulayeen qaabka ay ku maamulayeen qaab fiican ma ahayn hase ahaatee dadka u daba dhaqaya oo uu ka mid yahay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha meel xun ayay dhigi doontaa hawsha ay ku socotaan Axmaaro waqti baan ugu socday deegaanka Soomaalida maxaa u dambeeyay maalmihii ugu dambeysay ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida heegan ayaa la galiyay sifadii lagu sugi lahaa munaasabada ciida aanay ku dhici lahayd mid nabada maxaa u dambeeyay magaalada Jigjiga iyadana ay jirtay dhanka kale khatar amni oo ay ka baqayeen dawlad deegaanka Soomaalida in ay ururada argagixisada halkaasi weerar ay ka geystaan maxaa u dambeeyay iyadana garoonka weyn ee lagu ciido ee magaalada Jigjiga aad ayaa la iskugu soo baxay dhammaan dawlad deegaanka nabad ayaa looga ciiday wax la xaqiijiyo hadda dhib oo dhacay ma jiraan warbaahintu waxay hadda keentay ma jiro dawlad deegaanka Soomaalidu maalmo ka hor ayaa loo diyaar garoobay ciidamada new booliska loo yaqaano new booliska ee gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa xaqiijiyay goobihii lagu maaragtay lagu ciidahayo garoomada dhamaantood ciidamada ayaa ku hareereysan wuxuu sidoo kale Masjidul Aclaaha ninka ugu sareeya uu sheegay madaxa Masjidul Aclaaha dawlad deegaanka Soomaalida uu sheegay in garoonka qofka galaya la baarahayo garoonka waa la baarahayay looma ogolaan telefoon looma ogola bir looma ogola ul looma ogola wax walba oo Maxamedow maaragtay qofku ama qofka kale wax ku gaarsiin karo waa laga reebahay Soomaanka xataa birta waa laga furayay shacabka ugu dambeyntii Santiago dawladda Soomaaliya ayaa waxay soo saartay baqyo kala duwan oo ku saabsan in ay jirto khatar amni oo laga cabsi qabo inta ay doorashada ay lagu jiro munaasabada ciida taliye xijaar oo hadlay ayaa sheegay in munaasabada ciida la rabo in la xaqiijiyo amnigeeda oo waxba una ka soo dhicin laakiin ay jirto khatar amni oo halkaas laga soo degay ayada maxaa u dambeeyay adoo wararka Soomaaliya nabad ayaa lagu ciiday ra'iisul wasaaraha iyo waxa weeye mas'uuliyiin kale gaar ay u ciideen meel gaar ay ku ciideen madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kale iyagana waxa lagu tukanayay Maxamedow masaajidda ayaa lagu tukanayay oo la iskugu soo bixin barnaamij ma jirin walow dad shacab ay tageen meelahan lagu dalxiiso oo maaragtay dhalinyarada saxmadooda aad looga dareemayay oo iyagu hadda dhalinyaradu marka horeba ay free ahaayeen mas'uuliyiintu nabad ayay ku ciideen wax dhibana ma dhicin ciidamada waxa weeye booliska Soomaaliya ayaa amniga sugahayay ilaa 3 bari ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxa laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u weyn kaasi oo lagu xaqiijinayo amniga iyo sidii ay u dhici lahayd munaasabada Ciidul Fitriga oo maanta si fiican u dhacday ciidamadu dadaal ayay sameeyeen
waxa weeye shacabkuna si nabada ayay ku ciideen aad iyo aad baa mahadsantahay daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin daawashada iyo garab joogga aad noo muujinaysaan waqti kasta iyo mar kasta aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaan barnaamijkan kan xiga aan ku kulmi doono waxay naga tegayaa sidaas iyo ammaano